kulanti wacan saaxiibayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii milicsiga afka hooyo waxaan ahay ficil burkuud dhidhi waa bahdii daljir oo udbaheedii iyo dhigaheedii wadata gibilkuna u xidhan yahay galabta waxaanu idiin haynaa waa barnaamijkeennii su'aalaha iyo bulshada magaalada Baran dhammaan waxaan u mahadcelinayaa barnaamijkii hore dadkii ka soo qayb qaatay oo su'aalihii ay shacabku soo weydiiyeen ka soo wada jawaabay barnaamijkan gabagabadiisa ayaanu ku soo qaadan doonaa su'aalihii ugu saxsanaa iyo dadkii ka soo jawaabay mahadsanidin marka hore ku soo dhaw warbaahinta daljir magacaaga aad ku bilaabay magacayga waxa dhahaa Muuse Cabdiraxmaan Jaamac Muuse su'aal baan ku weydiinaynaa af Soomaali ama dhaqan bay noqonaysaa taan ku weydiinateeda oo kale in bulshada iyadana weydiisid baan rabnaa diyaar ma u tahay diyaar baan waa gartay dhaqanka si isku tii dhaqanka wallahi Soomaali baan waxa waa iga bilbilaabay in kastoo dhaqanka Soomaalida uu naga lumay oo waayo adduunka waxa ka dhacay ka dhacay sax waxaan toosiyo oo dadka dhaqanka wax kale ma sheekeeyay wax ciyaariyo kubadda iyo siyaasadda shaqeynaysa dhaqankii waa hawada ka baxay marka inaan hadda barnaamijkan waxaan ugu talagalnay waxa la dhahaa milicsiga afka hooyo baro ibar inaan kor ugu soo qaadno dhaqankii baan ugu talagalay sax ma garatay sax marka su'aasha aan ku weydiinay waxa weeye dheel af Soomaali dheel wallahi dheel baan naqaan oo u naqaan ciyaar dheel waa dheel wallahi waa regal santahay dheel shacabka ku daawanaya weydii su'aal maxaad weydiinaysaa adigu shacabka waxaan weydiinayaa kalax maxaa la dhahaa kalax aad iyo aad waa mahadsantahay waa tahay marka hore ku soo dhaw warbaahinta daljir magacaaga aad ku bilaabay bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad baan ugu dhawahay magacaygu waa Sakariya Ibrahim Ahmed Sakariyo hoos u soo dhawo horta marka hore soo dhawo Sakariyo su'aal baan ku weydiinaynaa su'aal af Soomaaliya su'aashaas teeda oo kale baan rabaa bulshada inaan iyagana uga faa'iideysin diyaar waa u tahay Soomaa aad iyo aad intii taalkayga dhaqanka ka warna isku tii wallahi dhaqanka xogaa waa ka aqaanaa boqolkiiba 40 meelaha waa garan wax walba Soomaa sooda waayahay ciida dameeraha af Soomaali maxaa loo yaqaan waxa la dhaciidaha igu yar ciida dameeraha af Soomaalihan markuu ciyo ciibaan u aqaanaa ma aad garanay su'aal weydii dadka geelu markuu casarkii markay tahay qoraxdu maxay ku samaysaa marka uu casarkii ay gaadho waa gartay ma bilowda waa tahay daawadayaal weli waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijkeennii milicsiga afka hooyo marka hore ku soo dhaw magacaaga aad ku bilaabay magacayga sadar muuqdo su'aal ka dhan oo bulshada gobolka Sanaag oo dhan inay garanaysan magacaygu ay xafanfaan bulshada gobolka kaliya kuma daawanaysa caalamka oo dhan baa laga daawanaya aad iyo aad baa u mahadsan tahay ficilow waa runta caalamka oo dhan qaybihiisa kala duwan baa la daawanaya ilaa maxaa xasan dhalo gida jooga maaleynaya waa gartay marka magacaaga u sheeg magacaygu waa xafanfaan oo loo garan og yahay Yaxya Axmed Maxamed dadkiisa Yaxya su'aal baan rabnaa inaan ku weydiino ama af Soomaali ama dhaqan bay noqonaysaa taas oo kale in bulshada weydiisid baan rabnaa diyaar ma u tahay aad iyo aad baa mahadsantahay ficil horta marka koowaad oo soo dhaweynaya barnaamijkan milicsiga dhaqanka iyo ogaanshaha afka hooyo ee guunka baada warbaahinta daljir oo isku duubanay dardar gelinayso oo gobolka wado oo ka warbaahin ahaan iyo kan shacab ahaanba ay dadku wadaneynayaan ma ogtahay in macna gaara iyo macnaweed gaarana ugu fadhiya insha Allah aan arjeelno guul taariikheena ka gaartaan aad iyo aad baa mahadsantahay soo dhaweynaya aad iyo aad baa mahadsantahay saxab qaali su'aal shaan ku weydiinana dhaqanka si isku tii dhaqanka dhinacyada qaybaha kala duwan ee dhaqanka iyo haday tahay barnaamijyada kala dood baa ku fiicnaa gibil af Soomaalihan maxaa aad waa mahadsantahay gibil hadii aan isku dayo waa awrka markii la raro jarcada dusha laga xiro markii la guurayo oo kale muxuu ka samaysan yahay gibilku wuxuu ka samaysan yahay waa jarcada geela neefka geela marka la qalo jarcada laga saaro saanta macnaa geela awrkaas gibilka loo xiray macnaa goorta geela awrta la rarayo la guurayo oo kale gibilka loo xiray waa rarkan ugu dambeeyo la saaro waa sax su'aal ku siida shacabka ku daawanaya aad baa mahadsantahay shacabka daawanaya hadii aan su'aal taariikhi oo la wada xiiseynayo oo micna gaar ah sameynaysa aan weydiiyo badana shacabku waxay daawanayaan markay gobolka yimaadaan ama ereyga dhagahooda ku soo noqonayo oo shacab ahaan iyo warbaahin ahaan baan in badan isweydiinayno waa ereyga ficil burkud ma maqalnaa waqtiga waxaan rabnaa inay taanaga jahil saaran waa taas shacabka kaaga soo jawaabi doona aad iyo aad baan u mahadsantahay walaal marka hore ku soo dhaw warbaahinta daljir magacaaga aad ku bilaabay
waan dhowahay magacaygu waa Cumar Daacad Fiil oo soo dhaweynaya adiga barnaamijkaagan xiisaha wadida Cumar wuxuu ka mid yahay wariyaasha gobolka Sanaag Cumarow su'aal baan rabnaa inaan ku weydiino su'aashaasu su'aal dhaqan bay noqonaysaa ama af Soomaali adiguna taan ku weydiinteedo kale in bulshada uu weydiisid ay kaaga soo jawaabaan baan rabnaa diyaar ma u tahay Artenia diyaar baan Artenia waa gartay kaamiradan u jeeso dhaqanka say isku tii wallahi dhaqanka aniga dhaqanka dad reer miyi baan hayo dhaqanka waa Artenia wax badan oo dhaqanka inaan garanaysaa aan garanayo waa gartay mar haddaad reer miyi tahay dhaqanka si fiican baad u garanaysaa ciida dameeraha af Soomaalihan maxaa loo yaqaan ciida dameeraha erebixin hadda ciida dameeraha af Soomaalihan maxaa يعني sida geed oo danan oo kale waa saas oo kale laakiin ciida dameeraha hadda erebixin Soomaaliya ciida dameeraha ma garanayaan su'aasha waa kala weydiin waxay tahay ariga oo kale ama xoolo ama idaha oo kale sax neefka idaha waxa weeye lugaha madow oo kale sax Soomaaliya lagu yiraahdo kasoo diiriya neefka idaha oo lugaha madow waxa af Soomaali ahaan lagu yiraahdo marka hore ku soo dhawo warbaahinta Daljir adoo magacaaga ku bilaabay بسم الله الرحمن الرحيم وكل وهي والباهينة دلجر مقعد محمد حسين محمد يوسف فلان محمد سؤال بان ربنا inaan ku weydiino Soomaaliya su'aasha teed oo kale inaad bulshada ku daawanayay weydiisi baan rabnaa diyaar ma u tahay diyaar baan ahaa waa gartay sanadku inta xilli uu ka kooban yahay inta xilli uu ka kooban yahay sheeg sanadku afar xilli ka kooban yahay sax ka kooban yahay gu iyo jiilaal iyo dayr iyo xagaa aad iyo aad baad u mahadsantahay waad garatay su'aal kale weydii dadka oo dhaqanka dadku waxa weydiinaya su'aal dhaqana su'aashaas oo waxa sheegtaan cunto hadii milix lagu daro ka soo qaad malqacad ama laba malqacad milix lagu daro oo kale aan ka dhadhamin hadii xitaa mistaxad u dartay aan ka dhadhamin cunto aan milix ka dhadhamin taan midxbo ka dhadhamin oo dhamay laba malqacad ku dar mid kale ka dabagay ka wada dhami maayo aad iyo aad baad u mahadsantahay waxaan jeclahay in lagaaga soo jawaabi doono waa tahay marka hore ku soo dhawow warbaahinta Daljir adoo magacaaga ku bilaabay bismillaahir rahmaanir rahiim aniga magacayga waxa weeyaan xildhibaan Jibriil Xamed Jibriil oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Baran waan ku dhawahay aad iyo aad baan ugu mahadsantahay runtii howlwadeennada warbaahinta Daljir ka shaqeynayaan barnaamijyo xiiso leh oo runtii wax weyn u tari kara una faa'iideyn kara bulshada iyo deegaankaba su'aal baan rabnaa xildhibaan inaan ku weydiino su'aasha teed oo kale inaad shacabka uga faa'iideysid iyagana oo maxay tahay aad weydiisid baan rabnaa diyaar ma u tahay aad iyo aad diyaar baan ahay waan ka jawaabayaa wixii ilaahay iga garansiiyo ama waa gartay su'aashan ku weydiinaya waxa weeye dheel af Soomaali ahaan maxaa lagu dhahaa wallaahi dheel kelmad ahaan suma eray bixin ahaan suma magaca waxa loo dheel dheelka anigu waxaan u aqaanaa kullay wixii aan u aqaan ma sheegaya dheelka waxaan u aqaanaa qabowga ama waxyaabaha cimilada qabow oo kale ama dhaxanta oo kale dhaxanta ayaan oran karaa dheel ayaa la yiraahdaa afka Soomaaliga dhaxanta xillimada soo dhacda dhaxanta waxaan oran karaa soo dhacda waliba xilliyada gelinka dambe ah su'aasha waad garatay aad iyo aad baad u mahadsantahay dadka ku daawanaya su'aal iyagana weydii dadka waxaan weydiinayaa daawanaya su'aal runtii aan oran karo waa su'aal iska fudud waxaad sheegtaa ama aad ka soo jawaabtaa noolaha kaliya oo jirjirka u jifsada noolaha kaliya jirjirka u jifsada ma markuu seexanayo mise markuu seexanayo noolaha jirjir u seexada waa la iska rabaa waa tahay marka hore ku soo dhawow warbaahinta Daljir magacaaga ku bilaabay بسم الله الرحمن الرحيم أنا وعلى حلمان عبد الرحمن محمد آدن حلمان قدسان كلها الدجان كدجمة برن حلمان سؤال بان ربنا إن كوي دينه رقم كتاب صنع في Soomaaliya taasoo kale inaad bulshada iyagana uga faa'iideysiin oo weydiisid baan rabaa barnaamijka waxa la dhahaa milicsiga afka hooyo baro ibar marka diyaar ma u tahay diyaar baan ahay insha Allah wixii garashada xilma dhaqanka si isku tii dhaqanka asku fiican oo inkastoo aan magaalo u badnaan miyi u badnaan laakiinse bal garashadeeda waan fiirinay inaan karto in karto alayda waa tahay ciida dameeraha Soomaali ahaan waxa la dhahaa
dabeeraha hidow wallaahi dabeeruhu horta xayawaanka laci maaha dhawaaq gaara bay leeyihiin kasoo baxa marka af Soomaali ahaan maxaa lagu dhahaa af Soomaali ahaan waxaa lagu dhaho dhawaaqa dabeeraha ma garanayo hadda ma garanayo bulshada weydii hadaba mid taas oo kale bulshada waxaa weydiinayaa maadaama xayawaan hadda ka sheekeynay bulshada waxaa weydiinayaa geelo shanta wax oo ariga ama xoolaha kale uu kaga fiican yahay bal ii sheega aad iyo aad baad mahadsantahay marka hore kusoo dhawo warbaahinta Daljir magacaaga aad ku bilaabay magacaygu waa Cabdirashiid Awad Axmed Jaamac oo ku dhawaay idaacada Cabdirashiid su'aal baan ku weydiinaynaa dhaqanka ama Soomaali ah teeda oo kale in bulshada weydiisid iyagana uga faa'iideysin baaruna barnaamijka waxa la dhahaa milicsiga afka hooyo baro ibar marka diyaar ma u tahay waa diyaarsana insha haye dhaqanka xoolaha si isku tiin isku ma fahmin Soomaha xirin af Soomaali maxaa la dhahaa xirin waxaan u aqaanaa anigu geela markii laga kaxayo guriga oo la ban saaro oo banaanada oo geelo xiriir looga dhigo oo marka dhulka banaanada lagu dhaqo aan guriga lagu dhaqo aad iyo aad baad mahadsantahay waad garatay su'aashaas oo kale weydii bulshada ku daawanaysa aan geela isku fiicnay wixii doonta ha ahaato waxaan weydiinayaa marka 11 cad oo geela ku yaalo aan dad iyo dugaagtoona cunay 11 cad oo aan geela ku yaalo oo dad iyo dugaagtoona aanu cunin bismillaahir rahmaanir rahiim haye hadarto waxaan ku sugannahay mid ka mid ah meheradaha magaalada Baran garabkayga midig waxa fadhiya mid ka mid ah dhalinyarta gobolka Sanaag marka hore ku soo dhaw warbaahinta Daljir bismillaahir rahmaanir rahiim garab wanaagsan oo ku dhawaay radio Daljir sidoo kale ficil waan dhawahay aad baad u maasantahay boqolkiiba waa tahay walaalo marka hore adoo magacaaga noogu bilaabay bismillaahir rahmaanir rahiim haddaan magacayga ku bilaabo marka hore waxa la dhahaa Cabdinaasir Ismaan Shire ku nool degmada Baran Cabdinaasir su'aal baan rabnaa Soomaaliya inaan ku weydiino su'aasha aan ku weydiino teeda oo kale barna shacabka ku daawanaya inay uga faa'iideysid barnaamijku waa milicsiga afka hooyo baa la dhahaa baro ibar marka su'aal inaan ku weydiino diyaar ma u tahay waa mustacid diyaar waa ta mustacid carabi weeye ay noogu darin diyaar ba u tahay su'aasha aan ku weydiinayna waxa weeye heerin ma taqaan haddii aan isku dayo su'aashaas heerin aan jawaabteeda haddeer soo saaro heerin waxay noqonaysaa gabar meel cidla maraysa gabar meel cidla maraysa ama magaalo ka tagtay oo meel cidla maraysa dabeetana nin uu la kulmay dabeetana ninkaasi uu soo kaxaystay ama uu soo raaceen dabeetana ninkaasi uu guursaday oo guri la degay intaasaan jawaabteeda kusoo koobaya heerin waa tahay aad iyo aad baad mahadsantahay shacabka ku daawanaya bismillaahir rahmaanir rahiim shacabka haddaan su'aal weydiiyo su'aashan sidatan ayay u dhigan tahay su'aashu waxa weeye waxaraha yar xerada yar oo loo hooyo af Soomaali ahaan maxay u taqaanaan xerada waxaraha yar yar lagu hooyo Soomaali ahaan magaca loo yaqaan saasaan u qaatay af Soomaali ahaan magaca loo yaqaan waa tahay aad iyo aad baad mahadsantahay waa tahay marka hore ku soo dhaw warbaahinta Daljir adoo magacaaga ku bilaabay waa dhawahay magacayga Axmed Axmedow su'aal baan rabnaa inaan ku weydiino ama af Soomaali ama dhaqan bay noqonaysaa bulshada ku daawanaysa in su'aashaas oo kale weydiisid uga faa'iideysid baan rabnaa diyaar ma u tahay aad iyo aad soo dhaweynaya barnaamijka aad ka xiisaha badan waa tahay xoolaha sida isku tiin dhaqanka kale Soomaali baan ahay waxa weeye baadiyana ku soo koray laakiin dad ma dahdahina xoolaha ku aqaan wali xagga ariga aad u taqaana ay qanjaaful Soomaali ma taqaan qanjaaful waxa la dhaho qanjaaful waa aqaan qanjaaful waxa la yiraahdaa rida ama neefka xoolaha raafkiisa hoose oo qolofta adag ku socdo waa tahay aad iyo aad baad mahadsantahay waad garatay su'aashaas dadka ku daawanaya maxaa iyaga dadka waxaan weydiinayaa marka la yiraahdo caynka ama bayda cayn iyo bayd oo laba xarig oo badanaa dhaqanka Soomaalida aad caan uga ah sax labadaas aan weydiinayaa cayn iyo bayd waxay kala yihiin la soo kala saaro magacaaga ku bilaabay bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdullaahi Cumar Yuusuf oo ku magac dheer Biinde
binde waxaan rabnaa inaan su'aal ku weydiino su'aashaas ama dhaqan ama af Soomaali bay noqonaysaa teeda oo kale inaan bulshada uga faa'iideysan iyagana aad ugu celisid baan rabnaa diyaar ma u tahay saxa diyaar baan ahay inaan bulshada uga faa'iideeyo waxyaabaha la weydiiyo sidoo kale aan weydiiyo su'aal dhaqan ah waa tahay waxaan ku weydiinaynaa dheel af Soomaali ahaan maxaa la dhahaa dheel haddii aan isku dayo su'aashaas dheel Soomaalidu waxay u adeegsataa badanaa ciyaar oo kale sida hebelow dheesha igada waxaana laga adeegsanaa waan filayaa qolyaha xagga koonfurta oo kale marka dheel waxaan u aqaanaa ciyaar dadku daawanaya maxaa weydiinaysaa dadka daawanaya waxaan weydiinayaa waxaan rabaa inay ka jawaabaan su'aasha ah xooluhu arigu markuu 100 gaaro waxa loo yaqaan oo la yiraahdo geelu sidoo kale markuu 100 gaaro waxa la yiraahdo lo'duna sidoo kale ama gamaanka oo kale yana waa afartimeesi aad iyo aad baad mahadsantahay waa tahay daawadayaal waxaa intaa inoogu eeg barnaamijkeennii milicsiga afka hooyo baro ee bar oo aanu galabta idinka weydiinaynay bulshada ku dhaqan magaalada Baran dhanka kaamiradu waa jaamac qoryeele barnaamijka waxa idin daadinaya anigu ficil burkud dhidiya tan iyo intii barnaamij la mid ah ku kulmi doono waa bahdi daljiro isku duuban oo idin leh salaamullaahi calaykum wa rahmatullaahi damaciyo hankaga meel durugsan ku rara dabuubtan iyo ereyadan dulucdeedu waxay tahay dal jir weyna deeqdo waa raadiya dal iyo dibad dadku wada dhega